يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك اقرعي. السلام عليكم. magacayga waa Ismaaciil Charter. waxaan ku barbaaray xaafadda Hell's Kitchen ee ku taala Manhattan. anigoo haysta Catholic reer Ireland. markii aan yaraa waxaan ku barbaaray xaafad aad u xun. waxay ahayd xaafad aad muqaadaraadka looga isticmaalo. maafiyada reer Ireland xaafadaasi xoog ayay ku haysteen. qofkii ka hor imaadana gacan bir ah ayay ku qaban jireen. aabahay iyo hooyaday jiilkii koobaad ee Mareykanka reer Ireland ayay ka mid ahaayeen. iyo walaalkayna jiilkii labaad ee dadka Ameerikaanka ah ee reer Ireland ayaan ahayn. arrimahaasna waxaa la jira wax badan oo dhaqana iyo dhaqan soo jireen ah oo ay waajib tahay inaad barato. waa waajib waana laazim inaad barato inaad ahaato qof reer Ireland ah. dhaqanka, daansiga iyo musiga iyo nicida gumaysiga Ingiriiska ee Irelandta waqooyi, gaar ahaan marka aad ka tirsan tahay qoys degan Belfast. waxaan ahaa lagdamaa laga soo bilaabo markii aan jiray 5 sano ilaa aan ka soo gaaro 20 sano. sidaasi ayaan ahaa. taasina waxay ahayd hiwaayadeyda iyo hubigayga. waxay ahayd musaaracada ama lagdanku qayb noloshayda ka tirsan. waxaan caan ku ahaa magaca Brandon, halyeygii lagdanka. sidaas ayaan ahaa. 4 mar ayaan helay naynaasta ah halyeygii gobolka ee lagdanka. jaamacad ayaan dhiganayay, waa jaamacadda Arizona. waxaan ka tirsanaa kooxda musaaracada ama lagdanka. musiibo aad u xun ayaa run ahaantii igu dhacday. dhabarka ayay musiibo iga dhacday, mana aanan awoodin inaan lagdan sameeyo. markaa kadib waan xasuustaa maalintaasi la keenay labada xafiis ee maamulaha iyo macallinkaba. waxayna igu dhaheen, maanta kadib ma awoodid inaad wax uun sameeyo, xitaa mar dambe ma samayn doontid. iyadoo aan ka caajisay inaan arrintaas sameeyo mar kale. run ahaantii ma aanan aqoonin qofka aan ahay. waxa aan dareemayay oo keliya waxay ahaayeen xanuun iyo caro. waxaana doonay caalamka kuma xirna hal qof oo keliya, balse waa caalamka. waxaan doonay inay dareemaan xaddiga uu la egyahay xanuunka aan ka sheeganayo. waxaan barbaaray anigoo ah Catholiciste reer Ireland ah, mana aanan fahamsanayn waxa laga wado hal ilaah oo ka mid ah 3. maxaa yeelay fahamka ayaa markasta ah 3. waxaan bilaabay inaan safar ku maro dhammaan diimihii ku soo dhacay maskaxdayda ee markaasi jiray. waxaan doonay inaan wax ka ogaado Orthodox-ka, Christianity-ga. markii hore waxaan ku barbaaray Catholic reer Ireland, kadibna aragtida Protestantiga. sidaa darteed waxaan jeclaa inaan aragti ama ogaansho ka yeesho middan kale ee Orthodox-ka. Giriigga ayaan aaday. muddo sanada ayaan halkaa ku daraasaynayay. waxaana idhi waxaan wax la rumay kara maaha. waxaan idhi Towraad ayaan fiiri doonaa. 5 qayb ee ugu horeyda Bible-ka ayaan fiiriyay. kadibna waxaan idhi haa, tan waa lagu qanci karaa, maxaa yeelay waxay dhahayeen caabuda hal ilaah oo keliya. kadib waxaan aaday macbad deriska ahay. waxaana ku idhi waxaan rabaa inaan noqdo Yahuudi. ninkii xaqaamka ee halkaas haystay wuxuu yiri, hooyo Yahuudiyad ah ayaa ku dhashay. markaabaan idhi maya, hooyaday ma ahan Yahuudiyad. wuxuu yiri, ma guursanaysaa gabar Yahuudiyad ah? waxaan ku idhi hagaag, haddii aad gabar hayso balkeen gabadha aan aragna waxay dhaceen. haddii midkaan midka kale yaab geliyana waan arki doonaa say wax noqdaan. arrintaasi ma aysan yaab gelin. kadibna wuxuu igu yiri iska tag. waxaan idhi anigu ma aaminsana in Ilaahay uu diintiisa ku gaabinayo hal ummad oo keliya, balse waxaan aaminsanahay in Ilaahay la doonayo diinta dhammaan makhluuqaadka iyo dhammaan basharka, si ay adoonnimada ugu baxaan, xorna u noqdaan, keligiina u caabudaan. waan iska tegay si aan wax badan uga ogaado dhammaan diimaha. sanad ayaan joogay Nepal. Buddhismka iyo Hinduismka ayaan daraasaynayay 1 sano. mar ayaan soo maray qayb yar oo ka tirsan maktabadda jaamacadda. qaybta yarta magaceedu wuxuu ahaa Islaam. run ahaantii xaddiga ayuu la ekaa. wuxuu ka koobnaa 8 kitaab. waxaan idhi war arrintan waxba kama ogiye, wax uun kama ogi. waxaa ka mid ahaa kitaabtaas waxay ahaayeen kutub oo lahaa Elijah Muhammad, kuwa kale oo lahaa Rumi, iyo kitaabo kale ee uu lahaa Ghazali. waxay hayeen oo kale Qur'aan, musxaf ku tarjuman luqadda Ingiriiska. waxaan idhi waa kan kitaabka ay raacsan yihiin muslimiintu. waa kan kitaabka ay sheeganayaan inay raacayaan. wax go'aan ku qaatay inaan kitaabkaas akhriyo. go'aankaygana waxaan ku dhisi doonaa Islaamka marka aan akhriyo kitaabka.
waxaan daraaseeyey luuqadda carabiga, qur'aankana waan akhriyey. xaaskayga ayaan u laabtay, arrinta ayaan la eegay. waxaan ku idhi, ma awoodo inaan mar dambe noqdo kirishtaan, waxaan rabaa inaan noqdo muslim. diinta islaamka ayaan geli doonaa oo diinteeda waan bedeli doonaa. hadda ayaan bilaabi doonaa. waxay tidhi, hagaag, sida aad rabto sameey. ma aysan rumaysnayn taasi inay noqon doonto tijaabada bedeli doonta habka nolosheena, iyada iyo anigaba. waxaana aaminsanahay isbeddelkii koowaadba oo isla markaa dhacay, maxaa yeelay deganaan ayaan helay. xasillooni aad u weyn ayay nafsadeydu dareentay, midaasi oo aanan horay u haysan. aniga waan jeclahay xaaskayga, welina kama suulin inaan jeclay xaaskayga, laakiinse dadka oo dhan ayaan u xanaaqay. run ahaantii dabeecaddeedu way kulushahay. dadka reer Irelandna xaqiiqatan way xanaaq dhow yihiin, caalami ahaanna arrintaasi caan ayay ku yihiin. markii aan diinta islaamka galay, waxaa oo dhan waa iga tageen. culayskii caalamka oo dhanna waa la iga fogeeyey. xaaskaygu arrintaas ayay aragtay, waxay aragtay xasilloonida iga buuxsantay. isbuuc kadib markii aan diinta islaamka galay, waxay aragtay inta uu la egyahay isbeddelkayga. diinta islaamka ayay gashay. isbuuc kadib ayay diinta islaamka gashay. markii aan aragnay isbeddelka nagu dhacay innaga 5 ama 7 maalin gudahood. waxaan ku barbaaray Chicago, waxaan ku biiray jaamacadda magaalada Chicago. wax fikrad ah kama haysan waxa uu yahay islaam. waxaan arkay haween xijaaban, waxaan u maleeyay inay booliista yihiin. wax fikrad ah ma aanan haysan. shaki la'aan xaaskaygu waa midda ugu wanaagsan asxaabtayda. noloshayda maalmeed shayna kama dhaco ilaa waan kala qayb qaataa oo waan u caddeeyaa. waxaana jeclahay inaan ra'yigeeda ka dhagaysto. iyadu waa asxaabtayda tan ugu wanaagsan iyo dadka aan la tashto. haddii mushkilad isoo waajahdo, iyada ayaan aadaa, kadibna ra'yigeeda ayaan ka dhagaystaa. tani waa sunnadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. mucaahadadii ama ballankii Xudaybiya wuxuu aaday Ummu Salama, wuuna weydiiyey. saxaabadu uma dheg raaricin. waa uu tegay, iyada ayuu weydiiyey, maxaan sameeyaa? kadibna waxay tidhi, barqayso oo barqada gaar, kadibna ka xalaal noqo ixraamka. wuu tegay, arrintaas ayuuna sameeyey. saxaabaduna sidoo kale dhammaantood way sameeyeen. marka waa sunno in lala tashtaa xaasaska, lagana dalbado qaabka ay wax noqonayaan in lagala tashto. aniga carruurtayda waan jeclahay 100%. marka caalamkayga 3 meel loo dhigo, meel waa iyaga. markii aan fursad u helo inaan la joogo, ama aan la cayaaro, ama aan ku wadwado alaabta ay ku cayaarayaan, waxaan isku dayaa shay inaan sameeyo si aan wax u baro. marka aan fursad u helo inaan ayaga la falgalo, waxaan isku dayaa inaan u degdego si aan wax badan ugu faa'iideeyo intii waqtiga ii suurtageli karta. maxaa yeelay cumrigooda waa uu degdegayaa, waa ayna weynaan doonaan. usrooyin iyo qoysas u gaarana way yeelan doonaan. marka waxaan isku dayayaa inaan fursad kasta oo aan helo ka faa'iideysto si aan wax u baro. waxaan isku dayaa inaan ayagoo kale qof yar noqdo. waxaan ka bartaa iyaga si aan u dhoolla caddeeyo. wejiga kaliya kama dhoolla caddeeyee qalbiga si aan u dhoolla caddeeyo. wejiga kaliya kama dhoolla caddeeyee qalbiga xitaa waan ka dhoolla caddeeyaa. dhab ahaantii aniga ilmahayga waan jeclahay.